boqolka halaad waa laga wada simeeyaa laakiin ابو معاك هذا شي بقول كم بحية waxa la isku dhaafay waxa waaye naxariista waaye horta ana ma taqaana waxa naga dhaxaysanay sharmaaki la yaraanteena isla soo kornay la yaraanteena walaa been idin sheegayno waxa naga dhaxayso wax kaftan la dhaho kaftanki ma aragteen kaftanki ma taqaana tala adinkana waxa isdhahdeen maxaa waaye waxaan ay isku hadlayaan ana kaftana naga dhaxay dad isla soo kornay la yaraanteeni oo meel kooda kornaanahnay isla noolaa ila yaraanteeni ana waaweyn hadeer alxamdulillah isla nool baan ahnay marka ani sharmaaka kaftan wax la dhoo kaftan ما حياتي انا وحفظ خلد باجري سيجاره وانا والله ويغني حيبان ما idin sheegay branki buu sameeyay saa una xawliga uma naxan waxa isdaan ma taqaan والله انا ولي برانك ما سمع انا واحد لا كان xanuusna indho dhan waa xanuun saa u yaa weliga uma yaa ana xataa ilaa hadda maskaxda ku jirta اصحابتنا laan ilaa ku jeedo an branki horta hadda ma ka aarsan kar waa xanuunsana tacbaana ay wallahi been ma idin sheegay اصحابتنا وحرنا دورت مونت الحمد لله بشاره حجيده in the building بيبي أصحابتنا إن شاء الله وعشونا يا البيرو ويك باي بترس صور كيلا ساقوا والله هو قاروين هنا أو حتى هنا قرية قرية هذا بنانك شوقنا كاميرا بنانك كدوبنا ما شاء الله الحمد لله فرحة سكر التواي نبصوا بين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن سلام صحابتي دقالي والسود وهذا ميرو موجودين بو ولاش نسام عبدي وإن الله مركلي مقال عصب كسود وهذا جنال كيجا هذا جنال كويس سبسكرايب نوصل الظهر نور جوتنا كومنت لايك شير انتو ونو مهم وكاجا مهالعلنا يا لجوجست هذا يولي وكسود بريتان كذا تقع عصب ومهالعلنا يا صحابتي دقالي والسود وهذا ميرو موجودين بو ولاش ماس مذو وإذا الله مرة واحدة من ستحات بالسود وهذا أصحابتي دقالي ميرو موجودين بو sida aad soo aragteen ba saxaabtada qaaliga waxaan rabaa in asdul taaga fiidiyogaas aan isla soo wada daawanay huda aamun ee sharmaake horta ma sha Allah aniga horaan u iri ilaahu prank ka dhig horaan u iri hadana waxa la dhahoyaa prank waaye an laakiin in fiidiyogan inuu mid hore yahay inuu hadda yahay shaki igaga jira oo shaki igaga jiro hadduu horta mid hore yahay oo la iska soo qabsaday oo lu yahay hadda waaba mid horeba hadduu yahay laakiin mid cusub oo run oo hadda ay soo duubeen hadduu yahay waxaan leeyahay ما شاء الله تبارك الله وانكو فرحي عاد ما ugu farxay isla jirkiina iyo isla joogina aad baan ugu farxay because qoys Soomaaliyeed inuu dumo wax farxad oo ii gelinaysa iyo wax maartay farxada ii soo kordhinaysa malaha ما شاء الله تبارك الله waxaan leeyahay in badan sidii wada jooga tan prankiga hada u gudbo wallahi prankiga noocaana ma fiicino because reer dhisan waa isfurne prank ee wax fiican ma ahan ma fiic horta prankiga dhan ba asagoo fiicneen boo prankiga dhan ba oo soo fiicneen oo been la buubuuniyo uu yahay wax fiican u saheyn haddana qoys dhan oo dhisan in la dumiyo la yiraahdo haddana pranki waaye wax fiican ma ahan sharaftuna kuma jirto wax fiican ma ahan waana habaar waxaan leeyahay taasayta maxaan ku dhahay waxaan leeyahay waa qalad in ka dhacay ilaahay u toobad keena maxaan ku dhahay ilaahu naga cafi dhahaya haddaad isla joogtiin oo weli aad nabad qabtiin oo isla dhisan tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sukin barakeeya hana isukin adkeeya hana in soo hanuuniya idin leeyahay maxaan ku dhahay tan uurka ani video hore ila yahay asxaabteeda I don't know inuu hadda oo cusub yahay in kala maqan laakiin ani video hore ila yahay oo because ma waagi hore oo hudu cunugi hadda u joogo sharmaaka u dhashay uurkiisa markay lahayd oo lagu soo sheegay insaan oo kale ahayd marka ani ma aqaan videoga in cusub yahay in kala maqan waa cusub yahay video waa hadda idin dhahay laakiin waa hadda la dhahay ya waa hadda la dhahay hadda isla soo duubeen dib isugu noqdeen prank jilaayeen maxaan ku dhahay xoda sharmaake aan weliga prank ma jirno dhaana hata caloosha ka xumada aydan waxay dhahdaa waa ka xumahay ina martisaan oo dhan ii gashid maadaama aan caafimaad qabin oo walac ahay uur leeyahay si kastaba ha ahaatee hadduu videoga mid hore uu yahana hada ilaahay subxaanahu wa tacaala familka sadiiq ilaaf dhexyaal khilaafkooda Allah xaliyo reerkii nabadgal Allah ka dhigo hadii ay maxaan ku dhahay sidan ay runtaho ay waxay sheegaan prank ay dib isugu soo noqdeen hadda waan ku faraxsanaa ma sha Allah hore u sii socdaan leenahay asxaabtayda qaaliga waa in salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad bo maxaan ku dhahay waa in mahad celinaya
qof kasta oo maaragtay channelkii kasoo qayb qaatay soo booqday subscribe ii saaray iyo mid kasta oo comment ii soo qoray inta waa u mahad celinayaa asxaabta commentiga ku dhaliilayso ii soo qoraysa commentiga dhaliilaha iyo waxyaabahaas noocaasa ii soo qoraysa waxaan leeyahay qofka bili aadanka qalad uu ka dhici karaa oo bili aadanka qalad waa keeni kara walow aan hadda aniga wax hadda qalad iiga dhaco meeshan aan soo dhigay aan bu ogeynba oo haddaan ogahay qalad inuu yahay wax qaldan aan soo dhigay aanba ka dayn lahaaba oonan ku dhiiranayn jeclayna wax qaldan aan soo dhigo haddana saas oo ay tahay in ummadaha ilaahay iyo addoommada ilaahay kala aragti waaye oo waa la kala aragti duwan yahay waxa adiga qalad u aragtaa aniga sax u arki karaa waxa adiga sax u aragtid aniga qalad aan u arki karaa marka haddii oo maaragtay gabar inta iiga soo qortay comment canaan oo kulul ay dhehayso waxyaaba TikTok ka dhaca maxaa mar walba usoo dhigtaa waxyaaba TikTok ka dhaca maxaa mar walba noogu soo gudbisaa waxyaaba TikTok ka dhaca iyo waxyaabaha sayto in la soo gudbiyo oo bulshada lagu baraarujiyo oo maxaan ku dhahay wixii ra'yigaaga aad ka dhibato waa muhiim aad bay muhiim u tahay because bini'aadamku kala ra'yi duwan yahay wuuna kala maxaan ku dhahay fikrad duwan yahay marka hadda aniga aan u arko inaan wax saxan gudbinayo adina aan u aragto wax qaldan inaan gudbinayo aad u aragto way dhacdaa inaan kala maanahay ama aan kala fikradnahay way dhacdaa oo bulshada dhan bay ka dhex dhacdaa qaybaheeda kala duwan marka walaashii waxaan ku leeyahay hadda adiga wax ina qaldan ii aragto inaan gudbinayo adigu iska daa waxba ha daawanina aan ku leeyahay oo haddaad ii aragto wax qaldan oo duwa dee iskaba dhaafaa fiirsanin ha daawanine laakiin aniga waxaan isu arkaa qof saxan wax fiican gudbinayo maxaan ku dhahay ta wixii qaldan uu arko wixii saxa oo ka dhihilaa ka dhiibanaya isu arkaa mafahante marka asxaabteeda qaaliga soo dhawaada meeshaana soo galay oo social media soo galay video soo duwa YouTube aan furtay ama social media ma wax ku soo gudbiyay waxay dhaliilana ma arkaayo horta wax soconaya ma ahan in lagu dhaliilana diyaar u tahay in lagu maxaan ku dhahay taageerana diyaar u tahay in lagu nacana diyaar u tahay because ummadda ilaahay oo faraha badan meeshan soo wada gashaa kuma wada jeclaanaya qaara waxay ka helaan keenaysa qaara waxay necab yihiin keenaysa qaara ba ogolayba meesha inaan soo gashado ku dhahay acuudu bilaa gurigaaga ma iska joogtid oo ma iska fadhida gurigaaga maxaa wax soo gudbinaysaa marka asxaabteeda qaaliga waa in salaamaya waan inii mahad celinayaa 1001 jeer sida aan hawada ugu kulano markaste waxaan rajeynayaa sida qurux badan oo maaragtay aan maalinteeda u fiican tahay oo caafimaad qaba ilaahay inuu adinkana caafimaad idin siiyo oo nabad qabtiin ma hadda koowaad waxa iska leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala ana marna hilmaami karin ma hadiisa inaan u mahad celino alxamdulillah aan dhahno ma hadda labaadna waxa iska leh asxaabteeda qaaliga iyo walaalahayga Soomaaliyeed oo mar walba taageero oo fiidiyowalkayga ii daawado aniga maxaan ku dhahay waa soo duubaya video inaan duubo kama caajisay insha Allah ta'ala ilaahu ma 5 qof ifiirsata hadii rabto 5 qof ma ifiirsato ma ka caajisay aniga hadday 5 qof oo Soomaaliyeed ifiirsata farxada ii tahay 10 hadday ifiirsadaan farxada ii tahay 100 qof hadday ifiirsadaan farxada ii tahay mar walba aniga video soo duubaya because hamiga iyo maxaan ku dhahay wixii aan meesha u furtaaba sidaas ahaaba ina video soo duubo halkan aan soo dhigo aan ka soo muuqdo haddaan caafimaad qabo anaa u furtay anaan u soo diyaar garoobay marka asxaabteeda qaaliga waa in salaamaya intaasna waa asxaabta dadka qaar ah commentiyal ku soo qoraya adiga maxaan ku dhahay u aragta inay maaragtay commentiyalkaas wax ka qaldan loogu dhaliilaayo asxaabtaas u gudbinaya marka walaalahayga qaaliga kuma lihi wad qaldanta adiga commentiga ii soo qoray kuma aflagaadeyna kuma lihi wad qaldanta adigu saarabta ii la haday laakiin waxaan ku leeyahay waxa adiga kula fooshaxun daday la qurux badan taas qorshaaga xisaabtooda ku darso waxa adiga kula qurux badan daday la qaldayn marka bili aadanku isku ra'yina ma isku fikirna ma isku fikradna ma ahan waxaan ku leeyahay dhinaca adigu aad ka aragto u soco oo ku soco markasteetana maxaan ku dhahay qofka walaalkaaga hadal dhiirigelinaya inaa u soo qortida fiican oo maarta qurux badan oo dhiirigelinayo waa in salaamaya asxaabteeda qaaliga intaan videoga mid la mid ku kulmi doono waxa idin leeyahay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh bye bye